wasiirka hore ee maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgal oo maanta xilka wareejiyay ayaa si cad uga hor yimid damaca madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani ee uu ku doonayo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo golayaasha deegaanka ah taasoo ka dhacda qaybo ka mid ah degmooyinka Puntland. wasiir Xasan Shire Abgal ayaa waxa uu sheegay in aysan Puntland ka dhici doonin waa sida uu aaminsan yahay in doorasho qof iyo cod ah ay ka hirgasho degmooyinkaasi iyadoo lagu raadinayo muddo kororsi iyo sidoo kale sadbursi. ma dhacayso 12 degmo oo looga dan leeyahay in loo qabto hadafkeedu yahay in ama lagu helo kororsi ama lagu helo sadbursi lagu helo ma dhacayso in ay Puntland ka dhacdo. dhinaca kale waxa uu dhaliilay wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa oo dhawaan uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani waxana uu ku tilmaamay nin koox dawladda ka saaray koox kalena ku soo daray. waxaan kelmadii inaan dhaho wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Juxa saddex qodob oo uu yiri baan rabaa inaan soo qaato. qodob maalintii uu iscasilay guuleed gudoomiyihii guddiga wuxuu yiri habkii qof iyo cod oo Puntland wuu saqiray wiil hadduu qofku saqiiro soo lama god lama dhigo lama aaso. odagu maanta wuxuu yiri godkii baan intaan ka soo saaro ay saqiirtay baan maanta anigu waxaan samaynayaa mid cusub. waxaan leeyahay qadajeexi aa sheegtay weeye wasiir Xasan Shire ayaa ugu dambeyntii Juxa ku eedeeyay in uu gaf uu ku sameeyay isimada dhaqanka Puntland waxa uu xusay in uu isagu raali gelin uu ka bixinayo hadalkaasi. qodob maalintii uu iscasilay guuleed gudoomiyihii guddiga wuxuu yiri habkii qof iyo cod oo Puntland wuu saqiray wiil hadduu qofku saqiiro soo lama god lama dhigo lama aaso. odagu maanta wuxuu yiri godkii baan intaan ka soo saaro ay saqiirtay baan maanta anigu waxaan samaynayaa mid cusub. waxaan leeyahay qadajeexi aa sheegtay weeye wasiir wuxuu kaloo yiri laba kelmo hadda wuxuu yiri hadda ka hor oday qowsaar ah iyo koox in laga gudbaa la rabaa. odayga qowsaarka uu ku sheegayaa waa isimada iyo nabadoonnada. waad ka warhaysaan taariikhda Puntland waxa asaasay oo base u ahaa isimada iyo nabadoonnada. waa ka warhaysaan dawladdu shaqada ay qabato inta badan iyaga wada. hadda halkan wixii ka dhacay qabaayilka walaalaha ka dhacay saxmaygaag hadda nimanka uu fadhiyo 6 Oktoobar suu imaanaya waa nimanka uu ku sheegay qowsaarada. waxaan ka raali gelinayaa isimada iyo nabadoonnada reer Puntland hadalka waa ka raali gelinayaa. qodobka kale wuxuu yiri koox looma baahna. Cabdi Faarax Saciid Juxa wuxuu ka saaray dawladda kooxdii Saciid Cabdulaahi Dani dhistay wuxuuna soo galiyay kooxdii isaga campaignerska u ahaa. markhaati bay tahay Cabdi Wahaab Maxamed Saciid Faroole waa labadii nin oo dhinacyada ka taagnaa markuu campaign ku jiray. marka ma ahayn in laga tagayo kooxo in laga tagayo waxay ahayd koox in laga saaro meel kooxna la soo galiyo saas ay ahayd. odagana intaasaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin. munaasabadii xil wareejinta wasiirkii hore ee maaliyadda Puntland waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland xildhibaano siyaasiyiin iyo waliba marti sharaf kale.